السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصومالي تورينا channel oo idin leh ka bogasho wacan maanta waxaan ku dhiganahay wasiirka waxbarashada nakeen sabaxa marka aan wasiirka waxbarashada aan ku dhiganahay marka idin leeyahay ma ahan inaan dawladda ku dhiganahay dawladdu waa dawladeena dawladdu waa wadankeeni dawladdu waa wasiiradeeni dawladdu waa madaxdeena ma ku dhaganin dawladana adduunka ugu jecelnahay dawlad waxaan ku noolnahay waa wadan dawladnimadana waa ku taageernaa inta halkaasna waa ku taageereynaa waxa kale oo idin leeyahay wasiirka waxbarashada waxaan ugu dhaganahay qaladaadka ka dhacay ilmaha wax baranayo waxa ku jiro agoon waxa ku jiro hooyo yahay gado waxa ku jiro hooyo miis furan yahay waxa ku jiro hooyo dhimatay oo qaraxyada ku dhimatay ilmuhu waxay raadinayaan nolol farxad leh ma ahan inay raadinayaan niijab اوكي ardayda markay mudaaharaadka sidii wadamankan aan ku noolnahay waa loo nasteexaya waa la ilaaliyaa waxa laga dawoodaa biyo iyo waxay cabaan iyo waxay cunaan marka Soomaaliya markay ardayda mudaaharaadday ma ahan in xabad loogu jawaabo ma ahan in dil loogu jawaabo ardaydu waa fiyoorey wadanka waa dadkii bedeli lahaa taqaatiirta wadanka iyo ganacsatada wadanka injineerada wadanka wax walba oo wadanka xalkiisa ah dadkii qaba lahaa waay hadii maanta aad al-shabaab uqdad ku galiyo qarax oo adiga aad uqdad ku galiso xabad oo aad tiraade 6 maado imtixaanka ay galeen waxba kama jiraan aabba u dhafray hooya suuq u aaday u soo rafaaday cuniga u fikiray qof walba u rafaaday ardayda waa in la qanciyaa 100% bal aan aragno Soomaaliya waxa idin sheegaya aan daawano bal ardayda igu xigto waxay ka hadlayso iyo waxay sheegayso wasiirkana waa arki doonaa sidoo uu hadlayo wax walbana waa inta si doonaa waxa idin ka rabnaa qof walba oo Soomaaliya meel walba naga fiirsanayo jawaabteeda adinka xaqiinay jirtaa wasiirku ma qaldan yahay ma soo saxan yahay sababta ay tahay waxa qeylinaay waa arday waxa qeylinaay waa dhalinyaro Soomaaliyeed waxa qeylinaay waa dadkii dhalaankii wadanka wax u tari lahaa ama bedeli lahaa ama wax u qaban lahaa waxa kale oo idin sheegaya maanta YouTube-ka waxay ka shidan tahay assalaamu calaykum kabacad alxamdulillah wasaaraddu markay la tashatay inta bahwadaaga waxbarashada ah waxay wasaaraddu go'aan ku gaartay in imtixaankii dhammaantiis la baaba'sho ee dib loo qaado maxaa yeele macquul maaha imtixaan saddex maalina imtixaanku socday 6 maadana waa la qaaday 6daba suuqa yiileen hal meelayna ka wada imaanahay macnaha 90 iyo dheeraad goobood sidii loogu talagalay u shaqeeyeen laakiin goobaha go'aan waxay gaartay inay fashiliso وكوانا قارك من أرض لك الامتحانات كدولة أنا الشباب يقول حدك علينا ولا عشان الرعدي ساقرع من صوته قول حلق مدني قول قوسك جبجات كصوت بنادر سان فاميلي waxaan imtixaan ku galayaa shan Ismaan inta aan la sheegin imtixaan la galaa loo horo anaka iyo arday kale oo isku fasal aan ahayn isku iskool aan ahayn 4 sano wax isla soo bareeni anaka waxa bilaawtay in askarta ay nafil tuurto ay qoriga ugu tunto daadkiisa gabar la dilay igaar ilo socdaa qoran lagu dhuftay ana qori lagu dhuftay markaas waxaan la 4 sano xarigaatiin anaka wax galabsan askariga aan u qaad waxaan la 4 sano xarigaatiin xaq ma u laana anaka arday oo iskoolka soo xaafadda ka soo tagna subaxdii oo sooman in surwaalka nagala siibo
oo buumadeen haddana idinkoona siiba surwaalka iyo buumada imtixaan ma gelaysiina lacag u melin anaka kasoo gudub taas dacwadaas meela noo taala anaka taliyaa kula xisaabtamayna tan kale goodax barro hadalka uu yiri waa hadal uu ku qaldan yahay boqolkiiba boqol hadduu rabo waddankan horumadiisa iyo ardayda horumarintooda waa inuu si dhaqso leh ku shaaciyaa in 4 maado dhiman la galaayo aan ahmaho wax kala socay aysan jirin anaka ardayda haddaanana Soomaaliyeed waxaan rabnaa xuquuqdeena أولاً السلام عليكم وحسلام يا أرضي ضمان أنتي امتحانك وكباقي ميدي كلمات وحنا عبارين يا أنت مضحة مدحويني مرساري مبارلمان ما قضيك اسكو شيء قاضح بري كل واحد وشيء إني قلنا قالين أنا أرضي بانهاي امتحان بقى أصابحني ما أنتي أنا جو بنابحينا ميدي كلا أنتو عسكري حمو مصامة أو إيه أنتو وضنا إستاذ نحبذيه واحد وشيء نين أنتو سمعنا وضنا عربيات جري ما أنت مركو ما امتحان كأنه كنتو تنتو ayaga la qashka dhiibay dawladana dhiibtay gudoomiye ku xeelana dhiibay baarlamaanka dhiibay kulli wada dhiibay السلام عليكم وسون أكسن وحن دلنا هاي رمضان الكريم سايدي شغني وحن دبس عنا برنامج كأرديدا مظاهرات سي ودنك وسير كذا لبعتلاس أو كان حبذا لو جوابي وحن ورئيس دونا أردي سومالية جامعة دانيكتو واركي دونا وحين لو جوابان وحن لنا هاي وسير ك ما لبعتدو موسير ك ما سوى أرديدا هدي أرديدا نقطتين حل كرون من لواي يعني سيستم كاس لوجو صحو صوتي تاي معناها مركات الانترنت كان حرايا هوي بدن اب بدن ilmo badan ayaa ku xiran dad badan ayaa biilkoodii iyo noloshooda ku raasado yani soo aqabad kuma noqonaysid ardayda hada tiraada imtixaankiini 6 maado oo aad gasheen waxba kama jiraan soo aqabad maahan waxa tahay wasiirkeena waxa tahay horumarkeena waxa tahay hogaamiyaheena waxaan ka codsanaynaa in aad يعني أرنتان أرن كفي عن أدنو كنتو حال من نقول سواك سلام ولاد سودوا والسلام عليكم مقع هذا يو جامعة كتيميد يونيفرسال مدام أرضي سومالية تاي وحن ربنا إن نكوريسنا وحير أو جابن. أوكي ومقعي هو محمد حسن وحن نكون على وضع كان يقولون شاي. هذا يوم سنتاي محمد حسن وحواي ومحمد حسن أو أرضي سومالية أو ودن كان كنا لا يقولون وحن ورصدنا 6 مادود 6 سؤال أو وحي تهاي مدة أقول محمد هدي أنكو فيديو سيدي أركتا مدام أرضي آتهاي ودن إسلامي آتكونا شاي إسكول كي لقاب بحنايو جوري كي لقاب بحنايو وحبرشدي لقاب بحنايو مركز مظاهرات سيدي لقول رقمها هذه حقوقي صوب بندكتا جس إن بناء النول هاي أو حقوق لا هاي أو كرامة لا هاي هي اللي للرقمة بيا لقد دبودا سما اللي سودوية بيا لقد دبودا قد كيجي أفكار تيدا ولا دقيس وحساس كوسو دوينا أما بيا كاد دبودا والدولة دي أسكرتي ودن كسما أسكرتي وقصب وشقدودي ومحي شعبك وشقي أنا أسكرت سؤال شل بعد هذا قدمنا ما دام ودنك هذه قربه وحكو برانيسين أرضية ودنك هذه وحكو برانيس كلالك دباتة يقرح يرفادية هذا مقشي أما أركتي أتكلم سعوت ميديالية هذا أرضية وحكو برانيسو maadaama ayagii oo dhibaatadaas wax ku baranayo dhibaato loo sii geystay dawladda dhibaato sii geysanayso dhibaatadii ka soo cabanayaan maxaad dhihi lahayd dawladdaada maxaadna dhihi lahayd wasiirka waxbarashada maxaadna dhihi lahayd ardaydaas walaalaha dhibaatadaas ku jiro horta aadan uga xumahay dhalinyarada maanta ku dhibaataysan dalkeena Muqdisho ama gaar ahaan Soomaaliya oo dhan gaar ahaan caasimadda Muqdisho ee maanta ugu badan tahay waliba qarxiyada sida hadda iska soo daba noqoto adana dhibaatada ardayda markii aan si guda galno ardayda waa ognahay 30 sano dalka uu burbursan yahay dhibaatada iyo marxaladaha ay wax ku soo barnaayeen si fiican maantana waa ognahay wasiirada maanta iyo xildhibaanada kamid ah dawladda naftirkooda macadida iyo iskoolaadka Soomaaliya ka soo wada baxay oo macnaha si fiican sida si fiican maanta ardayda ayagoo ay waliba jaaniskooda helin ay ardayda ku aadayaan lacagtoodii laga yaabo in macnaha family baahan xataa ay jiraan familkaasna aan daruuf macnaha awoodin daruuftoodii markaas bilowga iskoolka inay uga baxshaan saasay tahayna haddii lagu sii dhibo ay dawladda culays ku sii saarto waa mid meesheeda leh murugan leh dawladdana maxaan ku bogaadin lahay in ardaydaas macnaha wanaagooda laga shaqeeyo waayo ardayda waa mustaqbalkii waxa dalka ما شاء الله ما دام الدولة هذا فرين عاد ماشان أقدر يسوء محا أرضينا ديه اللي هاد
ardayda maxaan dhihi lahay dadaalkiina meesha ka sii wada waxbarashadiina meesha ka sii wada waa ognahay dhibaatada aad macnaha wax ku soo barateen waxbarashadiina ilaahay aan igula garab galo insha Allah maalin aan maanta ahayna wadankeena uu isbedeli doonaa walaalayaal ninkaas wuxuu ahaa wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo ku nool wadanka aan ku noolahay ee qurbaha ee gaalada ay ku soo dhaweysay dadka muslimka ama dadka qaxootiga ah asigoo si sharaf leh loola dhaqmaayo iskoolkiisa iyo jaamacadiisa si sharaf leh u dhigto wax walba laga bixinayo ma aha qofku saas wax u sameeynaayo qof muslina waa qof gaal ah haddaba markii aad muslim tahay ee aad dad muslim oo dadkaadiya aad hoggaanka u hayso waxa lagaaga baahan yahay inaad wax badan ka fikirto oo aad wax badan ka shurayso waxaan leenahay maxamed حسن محمد جقعي aad u maadsan tahay waana kugu mahad celinayna keep going noloshaada assalaamu calaykum waa walaalkiinoo idin leh ramadaan wanaagsan soon wanaagsan weli waxaan daba soconnaa barnaamijkii ka dhacay wadanka ee ardayda Soomaaliyeed ayagoo mudaaharaadayaan lagu xabadiyay waxaan dhihi lahayn wasiirka Soomaaliya ee waxbarashada halkaas waa laga qaldanaa halkaas waa laga fiicnaa qalad ayuu ahaa in arday biil laga daba qaado way dhacdaa in macnaha yani booliska ardayda oo caawiyo haday mudaaharaadayso way dhacdaa in biyaha loo qaado oo oonkooda xataa laga fikiro way dhacdaa ileen waxa looga fikirayo waxay tahay waa kii adiga ku bedeli lahaa waxaan ku leeyahay keep going meeshaas assalaamu calaykum waa walaalkiinoo idin leh ramadaan wanaagsan soon wanaagsan weli waxaan daba soconnaa barnaamijkii ka dhacay wadanka ee ardayda Soomaaliyeed ayagoo mudaaharaadayaan lagu xabadiyay waxaan dhihi lahayn wasiirka Soomaaliya ee waxbarashada halkaas waa laga qaldanaa halkaas waa laga fiicnaa qalad ayuu ahaa in arday biil laga daba qaado way dhacdaa in macnaha yani booliska ardayda oo caawiyo haday mudaaharaadayso way dhacdaa in biyaha loo qaado oo oonkooda xataa laga fikiro way dhacdaa ileen waxa looga fikirayo waxay tahay waa kii adiga ku bedeli lahaa waxaan ku leeyahay keep going meeshaas assalaamu calaykum waa walaalkiin oo idin leh ramadaan wanaagsan waxaan idin leenahay weli waa barnaamijkii arday Soomaaliya ayaan wadada u istaagaynaa waa wareysan doonaa bal sida uu u arko iyo maskaxdiisa sida ay tahay asigoo wadan nabada wax ku baranayo السلام عليكم السلام عليكم ستاي السلام حالتك كورن رمضان وناكسن walaal waxaan rabnaa hal iyo laba inaan ku weydiino maadaama arday Soomaaliyeed ee wadankii wala nool aad tahay sax weydiin kartaa waxaan rabnaa inaan ku wareysano maadaama horta meedialka ma la socotaa ha waan daawada wadankii waxyaabaha ka dhacay ma la socotaa ha waan daawada okay aad ay wanaagsan tahay arday fiican aad tahay keep going waxaan ku leeyahay maadaama ay dhibaato ay ka dhacday ardaydii Soomaaliyeed ee wadanka wax ku baranayay ama dhibaateysnaa wadankii oo dhibaateysan ee qaraxyo ka dhacayaan dhibaato walba ay taalo shaqo xumo ay taalo nolol kasta oo dhibaato ay taalo wax ku sii baranayay ee jecel maanta ninka wasiirka booskiisa inuu tago sidee u aragtaa in ardaydaas oo mudaaharaadayso oo arday ah dhakhtarkii maanta duqooba kii bedeli lahaa ah ganacsatadii maanta duqooba kii bedeli lahaa ah wasiirkii maanta duqooba kii bedeli lahaa ah madaxweynaha kii maanta noqon lahaa oo ku jiro sidee u aragtaa in la xabadeeyo oo xabadeeyo askari ma aha ninka xabadeeyahayo nin kale oo kontra dawladda ku ah ninka xabadeynayo waa nin askariya waa nin dawladda u shaqeeyo dhibaatada waxa keenayo waa wasiirka waxbarashada sidee aad u aragtaa oo aad macnaha yani maanta aad hawada u marin lahayd walaalaha ee ardayda ee wadanka iyo meesha dhibaatada aad aragtay ee ka socoto wax ku baranayo wasiirkooda ee dhibaatadaas iyo askartoodii ee dhibaatadaas gaarsiinaysan sidee aad u aragtaa maxaase dhihi lahayd wasiirka maxaase dhihi lahayd ardayda horta su'aashaad weydiisay tan kaaga jawaabo kow ardaydu khaladka ma leh سفيعان كوحالة وزارة waxbarashada سفيعان wasiirkuna ka kow yahay سفيعان sababtoo iyaga ay taxanaadka soo diyaariya سفيعان iyagana keeno سفيعان una dibadda uga baxo gatay wixii maamulka ku qaldan leedahay ku qaldan shacabku ardaydu wax khalad ay ku leeyihiin ma jiro wayna mudaharaad karaan cabashadoodana way soo bandhigi karaan in xabad loogu jawaabana waa khalad labaad oo loo geystay weey هذا يوم ما سنتاي مادام ardayda qalad walba loo geesto oo ka imaanaya maamulka hadii imtixaanka la gatayna dhibaatadu ay ka timid maamulka
haddaba maamulku inuu xabad ku jawaabo waa qalad leen maamulka markaan leenahay ma aha macallimiinta ma aha maamulayaasha maamulku